xuska maalinta caalamiga ee malaariyada adduunka oo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay waxaa ka qayb galay madaxda wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed maamulka gobolka kan degmada iyo hay'adaha caafimaadka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay inay tahay meelaha ugu daran ee malaariyada dhibaatada badan ay ku hayso iyadoo ay socdaan adeegyada caafimaadka ee lagu ciribtirayo cudurkan ayaa haddana waxba aan iska bedelin halista cudurka sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Isxaaq Maxamuud Mursal way fadaanahay intii siin dhiirigelin koow inuu ogaana may sanadkii la dhaafi ama xuski hadii la dhaafi ilaa ay geeko oo kala waxyaabaha aan ka badan oo malaria dhibaato dadka injeysity yani su'aal ma ku teegan malaria dad dilahayta dad mid dilahayta su'aal ma ku teegan way wali dheegaseenaha hooyada dhilaanka intaas sanadkii indhamadayaan guutaan markii rafli inta harumaha caafimaadka la ka daaway masla ka baari la ku helay cudurka markii la haska dara Koonfur Galbeed daatada wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda waliba waxa ilaa iyo 15 oo qofood in xuski ilaa iyo xuskun intan dhaxayd mayla raayis harumaha caafimaadka seedan Fartuun Cabdi Cali iyo Aadan Cabdiraxmaan Axmed ayaa sheegay in halista cudurkan uu ku hayo bulshada Koonfur Galbeed loo baahan yahay in la laba jibaaro adeega caafimaadka iyo nadaafadda deegaanka si khataraha loo yareeyo shaqeynaya Baydhabo ama organization walba oo Baydhabo ka shaqeynaya ama Southwest State waxaan ku dhiirigelinaynaa inuu garab nagu siiyo sidii aan malaria free uga dhigi lahayn deegaanadeena anagoo ka bilaabayna qof walbaba nafsadiisa ka bilaabaya hooyooyinka waxay u baahan yihiin si looga hortago malaariyada in la bixiyo siyeero daweysan ma ahan siyeerada laga soo iibinayo banaanka oo waxay u baahan yihiin in siyeerada daweysan laga qaato xarumaha caafimaadka ee bixin intii dadka la sheegay oo hay'ado localka iyo nationalka dhamaantii awareness campaign la sameeyay iyo oo meel raay dadka lunku diga cudurkan oo kaneecada dhibaatada yeeshanaysa iyo baahadu isleey season la socotaan wali waxa meel raay malaayiin qof ee sanadkii waliba aan ka dhamadaas waa malaria dhibaato sheentay daraadii sida hooyooyinka uurka leh iyo yaalkan dha 5ka hana seedii oo meel raay low immunity-ga saas daraadii ay waliba sababaas madon meel raay dadkii dhangantii oo ka haano luku gurmada aadan carab oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Baydhabo ayaa sheegay in ka maamul ahaan bulshada gaar ahaan dadka barakacayaasha ay yihiin kuwa u baahan wacyigelin ballaaran in loo sameeyo heligi sanad guuridii hor unta koyni iyo tan tilamada tan etaaba wacyigelin la wada wacyigelintii hay'adii walbada la ka guuleysadii degmada Baydhabo sidii hortime unoon wali waxa meelo wasaqta iyo qashinka iyo walaan la ka deediyaw oo udurkaasina si degdeg ah usan ku dilaa kor in unoon ka degma ahaan way wala dagaalan hadaba la dagaalamo hayna Muxuddin Xusni Universal TV Baydhabo